barnaamijkan Finsom oo runtii barnaamij aad u qiimo badan wax badanna aad ka ogaan doontaan inta barnaamijka uu socdo waxaan jecelahay maadaama halkan dadkii isugu yimid intooda badan ay yihiin jaaliyadda Finland ee Soomaaliyeed inaan halkan mikrofoonka uga yeero walaashay Amran Maxamed Axmed oo ka mid ah jaaliyadda Finsom sidoo kalena noo samayn doonta soo dhaweyn iyo mahadcelin soo dhawaayaan leeyahay Amran marka ugu sabab mahadceliya dhammaanba asxaabta kan joogta ee Finland aanan muddo dheer arag iyo asxaabta aan maanta halkan ku bartay garoowe wixii hordhacahay iyo soo dhaweyntii reer wanaagsan ee walaalkii hore u dhiibay laakiin ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu noqdo kulankii labaad inuu ka dhaco bar labaad Finsom ay qaban qaabso inuu ka dhaco garoowe إن شاء الله تعالى وحنا شيء كيسة سدحات إنه كل اللي دورها كيسة. وحنا هلك كسر دوينيا سي أرمها سو إدل وفافاين في عنا قصيو ولكن عبد الداير وطبعا وديار سن إنه برنامج كان فينسوم يفافاين هذا قيمة بدن هلك إنه قصور فيديو إلى سودوية صعب كي سودوين تا ولكن عبد الداير عبدي سودو. فينسوم waxaa aasaasay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Finland ku nool marka Finland horta waa wada garanaynaa wadan yar oo Scandinavian-ka ka mid ah weeye waqooyiga Yurub ku yaala Soomaali fara badan ayaa degan oo hadda markii la isku kaayo daro waxaan malaynayaa annagii tagnay iyo wixii aan ku beeranay aan 30,000 ka yarayn in badan oo ka mid ah ama intooda badan ba ah muwaadiniin citizenship dadka reer Finland oo ana waan ka mid nahay xaqiiqatan waa bulsho miisaan culus leh bulsho qiimo badan wadanka wax ka bartay ka shaqeeya ka muuqda waxtarkiisa wadanka ay ku nool yihiin iyo midkas iyo Soomaaliyada ay ka muuqato bulsho isku duuban xaqiiqatan bulshooyinka diasporada markii loo fiiriyo bulsho isku duuban weeye waan hubaa dadkiina garoowe joogaa inaad taqaanaan dad badan oo jaaliyadda Finland ka mid ah oo Puntland gudaheeda wax fara badan ka qabtay oo caan ka mudane Ali Marweyn waxaan jeclahay inaan sii guda galno barnaamijkeenan oo runtii saaxiibo badan halkan ay noogu qoran yihiin inay oraahyo iyo aragtiyooyin qurux badan halkan ay ka soo jeediyaan waxaan jeclahay haddana inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibada halkan nala joogana dabcan qayb ka ah walaalkay Cabdullaahi Macalin Aadan oo ah gudoomiyaha SDRN oo aan leeyahay soo dhawow mudane Cabdullaahi sacabka iyo soo dhaweyntana waa dhankii soo dhawow waxaan rabaa marka hore inaan ugu mahadnaqo Finsom oo ka mid ahayd jaaliyadii ugu horeysay oo dalada SDRN wax ka aastay oo qayb libax waliba ka qaadatay munaasabadan halka aan maanta u joognana runtii aan ugu mahadnaqayno runtii inay nagu casuumto sidoo kale agaasimaha jaaliyadaha dowlad goboleedka Puntland walaalkeen oo isagana runtii munaasabada fadhiya maanta waxaan rabaa halkii hortiin inaan ugu mahadnaqo maamulka Finsom oo runtii aan rabno inaan ka markhaati kacno inay yihiin dhammaan qurba joogta Soomaalida ee dibadda ku nool wixii dalka gudihiisa ku soo noqda qaybaha kala duwanba sidaan ugu warqabo inay yihiin Finsom role model lagu dayan karo ahna jaaliyadda ugu horeysay oo qaab noocaan ah oo dawlad ilaa dawlad u abaabulan inay yihiin Finsom qoladii ugu horeysay inay yihiin Soomaalida dibadda ku nool dhammaan marka la isku jamciyo qaab deegaan dawladeed marka loo kaco marka Finsom waa role model dhammaan qurba joogta Soomaalidana ku dayasho ay u tahay dawladda Finland iyo dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Puntlandna runtii ay u tahay image positive ah oo muujinaya in markaan ummadda Soomaaliyeed ee dibadda ku nool
inay dalkooda wax ku soo kordhin karaan tala iyo dhaqaale intaba iyo maamul intaba ay ku soo kordhin karaan. Marka waa tusaale cad oo FinSom ay muujisay shirarka hore u soo qabatayna sida ay u sheegeen walaalihii iga horreeyey waxay muujiyeen tusaale fiican. waxaan soo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkay xuseen xaaji jaabiri oo isagu ka mid ah wasaaradda warfaafinta si uu si fiican uga hadlo doorka Finland iyo sidii ay kaga qayb qaateen dib u dhiska iyo dib u nooleynta wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta, hidaha iyo dhaqanka iyo tourismka inta soo dhaweey. السلام عليكم. وما سنتي نمان أيوة سلامية. أنا واحد كسؤال وزارة فافنتا. برنامج كحوها إن أشياء. كالنتا دولة فنلند أكيد جسدي دولة كوزارة فافنتا. لكن برنامج كبرنامج هذا يقول صور بلا من لو كوني أفريقيا طبعا كي. وزارة هان وحان سين كلا أنا وحان هاي مقعد حسين جابري لتريا وزارة أنا هاي. وحان إن باك جراوند برنامج اسمه صور بلا من. FinSom qaybta ay ka geysteen walaalkay Cabdullaahi Sujuud ayaa jooga background-ga Finland say ku soo gashay wasaaradda warfaafinta. Normally mashruuc markuu bilaabay bilateral dowlad iyo dowlad baa ay ka bilaabatay laakiin shakhsi ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Finland ku nool ayaa bilaabay. Cabdullaahi marka hore waxaan rabaa inuu background naga siiyo sheekadaas oo ku bilaabatay. markaan mid Muqdisho alaabtii keenay wax access ah ma aanan u lahayn wasaaradda warfaafinta cidna kama aanan garanaynin 2 bilood ay igu qaadatay in aan helo access aan ku siiyo alaabtan. nin wasiir oo la dhihi jiray Jahweyn baa markaas wasiir ahaa. markii dambe waxaan helay xildhibaan gabar xildhibaanad ah waxaan helay qolada alaabtaas u wadaa 2 bilood aan raadinayay waa ma igu xirin kartaa sidaasaan alaabtii ugu geeyey sidii aan ugu wareejiyey meeshaas waa mashruuca oo walaalkeen uu ii sheegaya uu ka bilowday ka bacdina wuxuu ku dambeeyey in maaragtay wasaaradda warfaafinta TV-ga iyo xafiis maaragtay waxaan idhahdaa studio-yaal dhowr ah loo dhisay in si fiican loo qalabeeyey oo matooro iyo loo keenay. intaa waxaa dhinac socday tababaro wariyayaal iyo tayeyn adigu 2 milyan oo euro lacag gaaraysa ayaa dowladda Finland ku bixisay arrintaas mashruucaas. waxaan u malaynayaa tababaradii mashruucaas dhalay halkan Garowe wariyayaal waa lagu tababaray halkan way yimaadeen qolooyinkii ka socday waqtiga Finland. intaa waxaan ku darayaa jaaliyad ahaan waxay ka mid tahay achievementiga jaaliyadda ay sameeyeen. Finland markii ay wasaaradda warfaafinta lagu daaqday macaawinadaas iyo qalabkaas wax weyn ay ka beddeshay. Studio ahaan studio ma jirin waxaa la isticmaalayay Radio Muqdisho ayaa studio loo isticmaalayay darbiyada echo bixinaya roofka haleysnaa maxaa yeelay TV qaranka loogu talagalay booskiisa ma ahayn Radio Muqdisho loo isticmaalay studio. marka waxyaabaha ay la fajaceen waxay ahayd inaad jirtaan ba cajiib ah. marka Finland waxyaabaha kale ay ku soo kordhisay waxaa kamid ah tababarada saxaafadda Soomaaliya tababarada siin jiray ilaa iyo xubnuhu ka dambeeyay. Normally waxay u badnaan tababaro soconaya 2 casho 3 casho oo iska gaagaaban oo aan sustainable ahayn. Finland waxay kaga duwanay tababarada siin qaar waxaa jiray 2 isbuuc 3 isbuuc soconay. Actually dadka tababarka bixinay meesha wasaaradda dhex degnaayeen ay la noolaayeen qalabka trainingkiisa iyo rakibaadiisa waxyaabaha sustainable ka dhigo. markiina tababarka sii weynaaday waxay awood u heleen inay gaarsiiyaan gobollada ama dadka soo qaybgala wariyaasha sii gaarsiiyaan. marka waxa adkeeyay tababarka Finland waxay qalabka oo aan hore u haysan kowle rakibaadii ay rakibeen shaqaalihii lagu tababaray iyo tababaradooda ahaa ma ahayn tababaro theory oo mostly hay'adaha qabtaan 2 casho 3 casho oo mediums baray tababaro serious xagga technical-ka oo mid waxaa jiray 14 beri qaar waxaa jiray 12 maalmood weliba qaar agaasimayaasha ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa Finland la geeyey oo la soo baray sida ay u shaqeysto administration-ka agaasimaha idaacadda Radio Muqdisho iyo agaasimaha TV-ga labadaba Finland ay aadeen waxaa la soo tababaray sida u shaqeeyo maamulka iyo maaragtay administration-ka. marka abaal aan maaragtay la gudi karin ayaan Finland u haynaa.
haddase waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo inana soo dhaweysaan barnaamijkeennana runtii ay noo tahay farxad gaara inuu nagala soo qayb galo walaalkeen wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdi faarax saciid juxa soo dhaweey finland oo ah dal yar oo waqooyiga yurub ku yaallo xiriir hore oo taariikheed iyo dhaqan aan soomaalida la lahayn haddana ilaa iyo burburkii intii la gaaray wuxuu noqday meelaha hoyga wanaagsan iyo tusaalaha wanaagsan u noqday dadka soomaalidaha qurbaha ku nool barnaamijyo badan oo dadkaa lagu caawinayana sanadihii dambe aada looga faa'iidaysanayay soomaaliya oo dad badan oo wax soo bartay ay dib fursadahaas ugu soo celinayeen dalkoodii oo dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelo kala gedisan ay wax ka geysanayeen marka aad bay fursad fiican u tahay waxaan xasuustaa bilowgii markii soomaalidu ay burburaysay anoo wax ka barta arday ah oo Prague Czech Republic jooga in dadkii ugu horreeyey oo newska adduunka aad u galay inay ahaayeen arday badan oo Moscow wax ka baranaysay Russia oo hal mar 90-koodii waxayd ma aqaane aad u galay oo dhinaca ruushka ka galay ardada Moscow ku baranaysaa ugu badnayd intii ka dambaysana Soomaalidu aad bay ay meesha ay u degaysay Finland ha yaraato laakiin dhinaca kalena waa dal tusaale wanaagsan u ah runtii adduunka haddeer oo gabar yar oo 30 iyo xoogaa jiri ay ka tahay ra'iisul wasaare ka tahay axsaabta dalkaas oo dhan hadda gabdhaha ay hogaaminayaan marka waa dal tusaale wanaagsan iyo kudayasho u ah xagga horumarka iyo cadaaladda iyo dhiirigelinta weliba gabdhaha iyo dhalinyarada ay tahay dadka Soomaalida ah inay wax ka bartaan marka ku soo dhawaada Garowe ku soo dhawaada Puntland ku sheekaysta khibradda isdhaafsada iyo Soomaalida reer Mareykan iyo kuwa reer Ingiriis iyo kuwa reer Canada waxay noqon kartaa tusaale kale oo ay wax ka bartaan oo iyaguna sida ay soo abaabulaan oo iyaguna maaragtay tanoo kale ay qabtaan marka hambal yaan leeyahay waxaan haddana halkan aan ku soo dhaweynayaa walaalkay Faysal Axmed oo ah gudoomiyaha USA oo civil society-ga ee Puntland oo nala jooga barnaamijkana ka qayb galaya soo dhaweynta sacabka ma la caajisay maxaa dhacay Soomaaliya ama walaata dhaha Soomaaliya runtii anugu 2 sano ka hor aan tegay Finland waxaan booqday Helsinki aad iyo aad bay si fiican oo qadar leh isoo dhaweeyay jaaladda Soomaalida halka joogta waxaan ka xusuustaa oon ku arkay oo macnaha aan oran karaa dadka Soomaalida ee dibadaha naga tagay waa meesha dadka Soomaalida badana ay wax barteen astaanta ku arkay ugu weyn taas weey ama injineero ama dhaqaatiir ama dad badan oo wax bartaan ku soo arkay oo macnaha taas oo isla ay waxay human resource-kaas u noqon karaa taageero iyo dhismo dawladnimo Soomaaliya haddii si fiican uga faa'iideysano ama dadkaas looga faa'iideeyo dawladnimada Soomaalida oo aqoontooda aysan la dhiman waxaan arkay dad badan oo kamid ah oo company waaweyn adduunka international engineer ka ah dhaqaatiir aan isleeyahay wax badan bay ka tari karaan dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed laakiin laga yaabay qofkaas inuu xoogaa lacag ku qaato laakiin uu wax badan ku kordhin lahaa isbeddelka iyo horumarka dalka Soomaaliyeed waxaan kaloo ku arkay sida burburka qoysasku ugu dhacay wadamo badan oo Yurub ah ama dhibaatooyin badan oo ka jira in ay dhibkooda uu yar yahay dad isku xiran oo jaalida wanaagsan inay yihiin baan soo arkay waxaan oran karaa kulankiina soo dhawaada inta ka timid gobolada iyo meelaha fogfogba ee ku soo dhawaada Puntland ku soo dhawaada Garowe waxaan isleeyahay inay noo tahay maalin wanaagsan maanta iyo Britain ay noqon doonto 2 maalmood oo la sheekaysto la isbarto faa'iido ugu weyn oo shirkan isleeyahay uu noqon doona waxay tahay in la isbartaa wax weyn ah oo halkan lagala tago dad Soomaaliyeed oo kala dhoobay wax badan kala maqnaa saaxiibo cusub abuurtay in Britain la ismudan doono nin walbana uu qof kale meel kale ku arki doono raahdiisa dardaaranka oo muhiim noo ah macal wasiir soo dhawo marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkan ama xafladda lagu soo dhaweynayo xiriirka Finland iyo Soomaaliya oo laga soo qaybgalayo aad baan soo dhaweynaya
laakiin waxaan si taagan inaan soo dhoweeyo dadka maanta loo baahan yahay dalka inay wax ka qabtaan waa intan iyo inta ka maqan oo aynu wakiilka uga nahay sidoo kale waxaa nala joogaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee puntland isagana aan hal mar saacad kusoo dhaweyn waxaan rabaa inaan hortiina ugu wada mahadceliyo odayaal iyo marwooyin dhammaan haweynta saxaafadda puntland oo halkan nala jooga runtiina barnaamijkan aadka u qiimaha badan ka qayb qaadanaya dhammaantoodna maanta aan u kala harin martidina waa noo timid waana soo gaartay dhamaystirka iyo kala xadaynta degmooyinka puntland oo iyadana bilaabatay December 2019 ay bilowday wasaaradda arrimaha gudaha daraasad la sameeyo degmooyinkii la tago aan rajaynayno in la soo gabagabeeyo degmooyinka puntland oo kala xadaysan bisha July 2020 waxyaalaha kale oo inoogu jira waxaa ka mid ah khariidada oo iyaduna socon doonta dhamaystirka diiwaangelinta codbixiyayaasha bixiya shuruudaha codbixinta oo processkeeda aan bilaabayno bisha July 2020 aan insha Allah ku dhaweynaa inay soo gabagabowdo bisha March 2020 ay aan dhamaystirno in la diiwaangeliyo dadka muwaadiniinta waxaan rabaa inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo agaasimaha jaaliyadaha Puntland oo halkan nala jooga mudane Cumar Shire Maxamed soo dhawow. Good afternoon everybody. Kala wanaagsan qof kasta halka jooga qof walbana waa inuu ka qaataa salaanta meeshuu leeyahay kulaha wasiirada nala jooga safiirka iyo agaasimayaasha martida iyo madaxdeeda la socota oo Finland. magacaygu waa Cumar Shire waxaan ahay Puntland Diaspora Affairs Agency Director General-keeda asagayada iyo ruulkayaga waxa weeye inaanu diasporada service garayno soo dhaweyno facilitate garayno shirarka iyo wixii qabsanayaan iyo wixii carqalad dalka kala kulma haddii baasaboorada dhibi ka gaadho safaaradahan la xiriiraa haddii maaragtay wax ku soo siyaadaan marka wax badan haddii ay dalxiis iyo meelaha kaloo la geeyo u baahan yihiin xafiiska hawsha ugu badanoo uu qabto qurba joogta waa inta reer Finland oo Finson oo Soomaali aad baan u soo dhaweynayaa ku soo dhawaada waxaan ku idhaahdaa Puntland shirkana ku qabsateen inuu noqdo shir mira dhala kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo safiirka safaaradda Finland oo iyo waliba consularka intaba soo dhawaada leeyahay mar kale nagu soo biiray. We are also very keen on supporting prevention of the ending of gender-based violence, FGM, and any other forms of violence against women and girls in Somalia. In fact, in all our work, we highlight very strongly the role of human rights and the rights of women and girls, including to sexual and reproductive health and rights, in order to make them empowered citizens of the community. sidoo kale Finland waxay ka shaqeysaa barnaamijyada daldiska ay ugu soo Soomaalidu dalka ugu soo jirto inay dib ugu soo yeelato dawladnimadeeda waxaan ka xusi karaa buu yiri Finland waxay taageertaa dib u heshiisiinta iyo in ay dadku Soomaaliyeed dib u heshiiyaan ama dib u heshiiyaan waxaan kale oo aad xoog u saarnaa mashaariicda human rights-ka iyo in arrimaha ka soo jeeda in laga hortago tacadiyada dumarka loo geysto. But also, as noted, we focus on strengthening of the state institutions. We try to help to improve the capacity of the state to provide important basic services. And in all of this, for us, it is key that we are working together with Somalis. We want to support Somali-led and Somali-owned processes. This is at the core of our development cooperation, and in our view, a key prerequisite for any sustainable development here in Somalia.
Finland sidoo kale waxay taageertaa inay institutionadii ama hay'adihii dawliga ee Soomaaliya dib u istaagaan una adkaadaan waxaan mar walba garab taaganahay Soomaalidu inay ayadoo hogaamiso horumarkeeda ayadana ay yeelato annaguna aan yeelano kaalinkii taageerada. In fact, all our development projects are aligned with the National Development Plan, national strategies, as well as national priorities set by you, the Somalis. And one might say that our contribution may be modest compared to some others in terms of volume, but on the other hand, one could claim that our engagement in Somalia is rather broad-based and ambitious, because in addition to these development cooperation activities, we also support, amongst other, the European Union's training and crisis management operations here, and we provide humanitarian aid and Finnish civil society, including more recently the private sector and universities, have their own strong links here in Somalian society. sidoo kale projectyada aan Finland Soomaaliya ka fulino dawladda Finland taageerto waxay la dhinac yihiin ama ay raacsan yihiin barnaamijka qorshaha qaranka. Runtii waxaan mar walba taageernaa inay Soomaalidu yeelato strategy ayada ay leedahay Finlandna ay supportive role qaadato ama kaalin taageereed. Waxaan la shaqeynaa ayuu yiri barnaamijka midowga Yurub tababarada iyo maareynta masiibooyinka. Waxaan aad ula shaqeynaa baryahan private sector-ka jaamacadaha iyo wixii la mid ah. And again, when talking about the private sector and the civil society and the important job they are doing here, again, behind all of this, we see a very active role of the diaspora. We have still challenges, though, when it comes to providing effective cooperation and assistance, and one of them is that the different actors, the different Finnish actors that are involved here, still are not sharing enough information. We are not planning our activities enough together, and we are not monitoring things together. So there's still much room for improvement in setting common goals and strengthening communication and coordination between all actors and stakeholders, and not only Finns but also others who are working together with Somalis. So this, I think, is a very important point for us. waxaan jecelnahay inaan mar walba la shaqeyno bulshada rayidka ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Finland tirada badan ee caawinaya dalkooda iyo kuwa kaleeto ee dalka ka shaqeeya. Runtii waxaan dhiirigelinaynaa inay bulshada rayidka ah yeeshaan xiriir joogto ah, wada shaqeyn, inay macluumaadka isdhaafsadaan si waxqabadkooda ay dalkooda u qabanayaan, ummadooda u qabanayaan u kordho, ay sheergareeyaan informationka, taasna aad ay muhiim noogu tahay. And this brings me to wanting to underline how important it is that we are having this dialogue here today. For us in Finland, we are beginning the work with a new country strategy and country program for Somalia this spring. And our aim is to become much more comprehensive in our work and to have a strategy that better joins together the actions and aims of different Finnish actors. And in assuring this, we want to engage with as many different stakeholders as possible so that we can understand their aims and needs and develop tools to work together. A comprehensive strategy will help us to maximize the use of our limited resources for much better results. waxaan hadda dib u eegid ku sameynaynaa sanadkan qorshaha aan kula shaqeynayna Soomaaliya ee qorshaheena qaranka ah ay Finland uga fuliso arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya. Waxaan jeclaan lahayn bulshada rayidka ah inay yeeshaan wada shaqeyn, annagana nala wadaagaan xogta si aan u ogaano waxyaabaha muhiimka u ah aan ugu dhisano qariiradeenna aan Soomaaliya uga shaqeynayno. In fact, for us, this forum represents a kind of a kick-start for this dialogue today, and I really hope that you will be engaged in active dialogue with us here during these 2 days, and that it will be a genuine dialogue on and discussion about Somalia's development and needs. We need to have this genuine dialogue
and really try to understand each other instead of what we sometimes do, deliberately misunderstand each other. And it's also important that parties are able to express their views openly and sincerely without the fear of being marginalizations or punished because of their views. So I truly hope that this forum can be used for active and true dialogue. waxaan jeclaan lahaa buu yidhi labada beri oo meeshaan aan joogno forumkaan aan ku guda jirno bulshada rayidka ee bulshada meeshaan ka soo qayb gashay inay si dhaba u wada hadlaan wadaagaan xogta ayadoon wax dib u dhigisa aysan jirin ama qof wax ceshanaya aysan jirin meeshaan ay ka soo baxdo wada hadal dhaba oo aan ku wadaagnay macluumaad dhaba oo ku dhisan xaqiiq ayadoo aan waxba qofku uusan qarsanayn ama uusan dareemayn in aragtidiisa ama fikirkiisa lagu eedeeyo waxaan rajaynayaa bilicda magaalada ee gobolka Banaadir waxaan soo kala rabay inaan maartay u yeero Cabdi Cusmaan Daame oo ka socdo Football Federation xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxaan soo kala jiro aan rabay inaan maartay u yeero Maxamed Diiriye oo abaalmarinta u qaadi doono jaamac cigaal gaabuush oo aan rajaynayo wasiir Juxa inay isla soo shaqeeyeen wasaaradda arrimaha gudaha oo marka dadkii aad ugu shaqeeyay hanaanka dib u heshiisiinta qaran ee Soomaaliya dadkii qoray oo wasiirka oo la soo shaqeeyay wasiir Juxa la soo shaqeeyay ayaan rabay inaan halkaan maartay aan ku casuumo Maxamed Diiriye fadlan soo dhawow saddexdaas qof aa u jeediin waxa waaye haddaan ku bilaabo Cabdicasiis fadlan ha bixino halkan soo istaaga Cabdicasiis Goodax Barre waxa waaye shaqo fiican ayuu maartay fiilan ku haystay waana ogtiin waa wasiir wuxuu la dhashay mataqaana Cabdullaahi Goodax Barre uu la dhashay marka asiga oo maartay fursado badan heli karo oo family siyaasi ka soo jeedo wuxuu ku qancay oo go'aansaday inuu noqdo agaasimaha bilicda magaalada nadaafadda meelihii ma taqaanaa oo nadaafad u baahan meelaha qaraxyada ka dhaca naftiisa ma taqaanaa ayuu u huray waxa habeenii maalin ayuu maartay ka shaqeeyaa 6 sano la soo dhaafay ku shaqeynay Cabdi Cusmaan Daame waa taqaaneen family oo caan ka jira Daame hotel Daame dadkii yaqaan dadkii xamarka ahay waxa ku soo jeeda family oo aad oo wealthy oo xamar laga yaqaan Soomaaliya gudaha gaar ahaan magaalada Muqdisho waa nin ganacsada ah haddana wuxuu door biday inuu maartay ka shaqeeyo arrimaha isboortiga wuxuu bilaabay wax la yiraahdo sports for peace sportiga oo nabadda lagu horumarinayo ayuu bilaabay wuxuu kaloo bilaabay sports award oo la siinayo dhalinyarada talentiga leh oo sportiga oo ma taqaanaa oo sportiga qaybaha kala duwan haddii noqon lahayd dadka refereega iyo ciyaartooyda iyo mataqaanaa tababarayaasha dhammaan waxaa kaloo jiro walaalkeen jaamaca gaabuushaan sheegnay arrimaha dib u heshiisiintu aad ugu shaqeeyay Soomaaliya meelo badan oo maray deegaano badan oo ka shaqeeyay maanta macnaa shir oo Norway ayuu aaday marka walaalkeena u qaaday marka waxaan rabay insha Allah taala sanad walbo inaan madashaan ay abaal mariso dadka Soomaaliyeed oo maartay oo wadankooda ku soo noqday oo wadanka wax u qabtay sidoo kale waxaan abaal marin doonaa dadka Soomaaliyeed oo reer Finland oo jaaliyada Finland in maartay ay Soomaalinimadooda iyo mataqaanaa wadaniyadooda iyo isdhexgalkooda ka shaqeeyaan in abaal marino sidoo kale in abaal marino dadka reer Finland sidoo kale oo Finlandeeska ah oo Soomaalida la shaqeey sanadkii hore waxaan abaal marin siinay oo balkinta aan siinay Tony Sandala oo hadda ay bedeshay Karita ay bedeshay sanadkii hore siinay waxaan rajaynaynaa sanadka soo socdo in dad ka mid ah safaaradda Finland ee arrimaha Soomaalida ka shaqeeyana abaal marin siin doono mar raba inaan idinku dheereeyo waqti ma taqaanaa hadalka waxaan rajaynayaa madashaan inay noqoto madal oo caado ah hadda dhowr magaalo ku tartamo sanadka dambe in lagu qabto 3 cities are competing next year where Finland Forum will be organized. Waa idin soo sheegi doonaa meesha lagu qaban doono laakiin waxaa ogaatiin madashaas u jeedin madal ma aha mashaariic fuliso ma aha madal NGO ma aha waxaan ugu talagalnay dadka wax qabto ama dawladda ha ahaadaan ama ha ahaadaan maartay bulshada rayidka ama dawladda Finland ha ahaadaan inay noqoto madal isku wareysto maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin maxaa wada qaban karnaa sidee siyaasadda Finland ee ku wajahan Soomaaliya maartay loogu mataqaanaa ay loogu iftiinin karaa meelaha Soomaalida ay ugu baahi badan yihiin aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa
hadda aniga dadka ku doodan ku jiraa nidaamka waa u daalay ujeeddadii laga lahaa waa la gaaray bulshada Soomaaliyeed hadda isma dirirsana hadda waxaa loo baahan yahay qofkii iyo dadkii intay u heeb sheegan lahaayeen beelo iyo qabiil ilaa inay u heeb sheegtaan shakhsiyadooda kartidooda aqoontooda waxa ay bulshada ku leeyihiin marka bulshada inta in halkaan fadhisa kaalinta uga aadan waan ka sheekayn doonaa nidaamka xigo federaalka nidaamka xigo federaalka maanta dalkeenu ku dhisan yahay qolaba waxbay ka aaminsan tahay fikradaha kala duwan ee nidaamka ka jira qaar badan oo ka mid ah waa fikrada caafimaad ku dhisan dadka Soomaaliyeedna ay si dood oo sax ah iskaga wareystaan maanta Soomaaliya waxaa ka jira successionist dad aaminsan inay Soomaaliya kala go'do oo qaybna meel aado waa fikir jira dad Soomaaliyeed baa qaba waa lagu tixgelinayaa waxay tabteen laga adres gareeyay mudanta waxaa kale oo jira dad aaminsan confederal war waxa aan isku darsanayna ha koobnaadaan cid walbana waxa la gooniha u haysato ayadan waa fikir jira dooda jira laga baahan yahay qaliilayda Soomaaliyeed dadka raba inay fikrada xaliyaan inay qayb ka noqdaan waxaa jira dad kale oo federalista ah oo aaminsan in badan inay self rule yeeshaan oo ay ayagu wax un isku xukumaan dawladda dhaxana wax u daayaan waxaa jira dad centralista ah oo wali aaminsan Soomaaliya inaysan mudnayn inay federaal noqoto isku luqad baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay dib baan kala gaaray laakiin calaamadihii federaal lagu noqonayay ma lihi waxaanu fikir waa jira from successionist to centralist waa ra'yi jira oo dad Soomaaliyeed qabaan mid baa sax mid baa qaldan sax ma marka qofka kaalinka aqoonta ay ka ciyaarayso iyo aqoonyahanka iyo qaliilayda Soomaaliyeed arintaas runtii waxay u baahan yihiin markay rabaan in waxa dawlad dhiska inay contribution ku sameeyaan gaar ahaan qurbo joogta annaga qurbaha waxaan ku barannay inaan tixgelino aragtiyada kala duwan dadka minority-ga diimaha kala duwan waa ogtihiin intiina Europe iyo America timid mid radicalist oo right wing mid left wing mid nooc kala bulshooyinkaas waa wada joogaan shaqada marka kaalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed uu ku leeyahay meesha iyo civic education ka loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed in loo facilitate gareeyo waxa asal ka ah horta koow inaan fahanno xaaladda dalka ka jirta maxay tahay say u jirtaa fikradaha jira yaa qaba cid qabta maxay tirsanaysaa maxay soo qamis sababtay u qabtaa what's the rationale ilaa fikir walba la qabo aragtiya ka dambaysa ficil baa ka dambeeya taariikh hore dhacda ka dambaysa waxbuu dadkaas ka daaweynaya horta koow inaan fahanno labo annaga waxaan u baahanahay dadka qaliilayda Soomaaliyeed inay fikradahaas xuluulshooda markaan ka shaqeynayno inaan dadkaas iyo aragtiyadaas aanan ku milmin oo aan fahanno qof walba inuu xaq u leeyahay wuxuu rabo inuu qabo kan kalena inuu xaq u leeyahay mid qaldan mid saxan inuusan jirin waxaan aragti dawladeed inay tahay aragtida dawladeedna aan dhisno buundooyin dadka ay iskaga gudbaan dooda saxa runtii dawladda kaliya wax laga sugo sax maaha inta halkaan fadhida qaliilayda Soomaaliyeed ayagaa laga rabaa adduunku marar badan bay markii wax dadka Soomaaliyeed waa dad u baahan in yar oo la saameeyo influence haddii la saameeyo loo sheego dariiqa fiican waa dad wanaagsan waxaan leeyahay bulshada rayidku meel bay wax keentay yaan dib loo celin aan hore uga socon haddii ilaahay noo salaam iyo Yurub iyo imika saddexdii sanadooda u dambeeyay ritaaniiska aan noqday yani maxaan ku idhaahdaa yaabano aan meel la garan dadna garanaynin dhowr ka maqantay dhowr iyo 30 sanadood damba dhowr iyo 30 sanadood waxay link soo leeyihiin baabastiya dadkiina garanaysa wax dhintay wax dhoofay dal iyo dadkuna garanaysa marka waxay kugu qabsanaysaa inaad iska noqoto dee qof iska yaaban haddaan saddexdan qodob u noqdo markii aan imanka joogay muddooyinka saddexdaas sanadood aan guud ahaan aan eegay dalka guud ahaanba Soomaaliya isku oran jiray waxaan qabaa nabadayn kolkay timaado ama nabadda ay timaado nabadda qof walba uu jecel yahay aad baa qof walba u doonaya waana waxa qura aynu ku noolaan karno amba aynu ku riixi karno amba jiritaankeena ayna dambe inaga ubadkeenu ku noolaan karo dalka haysan karo han kunta ka kala taabay nabadda horta waxay ka dhalataa jabto ay really إنك عارف من مصر قبل يحيي إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر حتى قف دون إنه النور هذا
falaa budda an yastajiiba alqadar awoodda rabbaanigiina waa garab galaysa inuu muxuu ahaa aynu ilaahayna u aqbalaya marka nabadaynta kolkay noqoto bas bulshada rayidkii way ka soo qaadatay laakiin idinna way ku xasisho way biyadhigtay roobku markuu da'o dee u biyadhigaa qaarna u dhaafaayo waa ilaa berbere bilaadhool bay idhahdo dooxaasu maraya meelana way xasishay oo dadku iyagaa nabadooda doonaya oo aan siyaasad iyo fitno kale toona doonaynin meella noloshiibaa lagala dagaalamaya waxaa looga baahan yahay haddaba dadka jooga warzonga dadka jooga meelaha aan xasiloon horta nabad iyagu gunta ka asaasaan leanno aqalka igu xiga kolkuu gubanaya dekayguna ula gubanaya marka nabadda waxaa loo baahan yahay bulshada rayidkii inay si daacada uga qayb qaadato oo ay maaragtay xoojiso waxaan se odhan lahaa meelaha xasilay waxaa cagaha u dhigay amba yaro dejiya intooda badan waxa oday dhaqameedada aynu idhaahno oday dhaqameedadii amba ildarbolkii in iyaga laftooda integration loo sameeyo oo isdhexgal loo sameeyo laydha war halkaa ku caanamaasheen bal waxa formladana siiya maxaanu seenan halkaanu ka bilowna laakiin haddii la isdhexgeli waayo waxooda integration bay u baahan yihiin haddii la isdhexgeli waayo amba la fahmi waayo ama dee maaragtay fikir la kala qadan waayo dee waa waxa weye barteedii fadhi hoggaankay noqotay hoggaankan waddankeennii waxay ku mameen imanka siyaasad bulshadii rayidka ahayd qof waliba waxa weeyaan political oriented wuxuu doonaya halkuu ku muraayad walba inuu isagu iska dhex arko amba qabiilkiisa uu ka dhex arko oo uu yidhaahdo aniga yaa nugu jira halkan yaynoo galay waxaa laga sheegayay okay hargeysa somaliland kolka la joogo ee xamar wax laga doono xamar yaa noo jooga annagana yaa inoo galay waa laga influence inay la xidhiidhaan qaar oo ay ku leeyihin ha halkan yaa noo jooga yaa noo galay yaa noo haleeyey ya maca inuu halkaa iska jooga aanu mar haddaad caawiyo beriya saa dambeen leedahay aad ku aadimayso aan wax wuxuu kusoo qabanaya aanay jirin goos waa qof isaga aad moodo inuu keligii iska tegey ee aan wax baa gabgaraynaya aanay jirin oo taasna waa muxuu xaqiiqa horumarintii bay noqotay horumarinta bulshada rayidkeed qayb weyn bay ka qaadatay hadday diaspora tahay hadday dalkii dadka dhulkeena joogay ay tahay waxa weeye dadkeenu waxa weeyaan meel wala jooganba dad soo saar leh waa dad maaragtay ilaahay hibada u saaray inuu maaragtay ay wax qabsadaan waa dad firfircoon laakiin ayaan darradu halkay ka dhacday ee ummaddan ay ka riiqantay ee habaarku kaga dhacay waxa weeye inta ina soo gasha ee aynu shaqayno iyo inta habeen qudhajood lagu cuno ya ayaan wax iskafaynaya ahayn marka la yidhaha 300 million beeriyaal ayaa jaad lagu cunaa certain locations amba meelo gaara bal hadda maxaad u malaynaysaa Soomaaliland oo dhan meel walba shanta Soomaaliyeed haddaad sugaysay inta jaad lagu cunaa okay aafadan goorma laga xorobay waayo horumarinta ee gaadhaya xagaya horumarinta dumarkiina waxa loo ogola okay waxaan odhan lahaa bal hadda okay free society habaraan waa ninka arkaya 32 years old 34 years old afarta dumar ee ugu powerfulsan maanta Finland afarta dumar Finsom waa inay liid garaysaa oo ay liid gareeyaan dowladda Finnish ay liid garaysaa si ay u soo saar lahayd haween daneeya oo bal hadda challenge gareeya maaragtay nimankan dominate gareeyay politicskii samad garan haddaan idin yara faahfaahiyo markaan imanaya ingiriiska aan ka imanayay anigoo aan dee iska qariiba ayaa waxa la yidhi ard waddanka tag xildhibaanimo doono dad baa igu gubaabiyey anna waxaan intaad ku gaadhaysa 2 saacadood oo tareen sii saarantay iyo 2 aad soo sii socoto aad u shaqaynaysa dalaanad lahayn aad dhimateed tireeda magacii Soomaalida dhow kii muslimka dhow 700 daarta 700 qof ah ee la yidhaahdo British Center 3 dumar oo Soomaaliyeed baa loo shaqaynayay ninna habarkiisa badaa loo kala toortigay ahay marka waxaan okay way dalka ugu shaqaysay waxaan okay parliament baan doonay waxaan moodayaa in sidii Finland oo kale loo raayo kulli shay waa qof ma oo maartay qof wal dooqiisa waan soo dhaweynaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan civil society maxay ka qaban karaan amniga deganaanshaha dalka dibadhiska dalka wax badan ay ka qaban karaan anigoo kale hadda markaan imaaday normal diaspora waxay dhihi jireen mawaalan tahay ay ka mid yihiin family memberska aniga aan kasoo jeedo oo walaalaheedii
see garow ugu tegaysaa adoo holan ilmaha ku dhasheen xagga maxaa ka doonay ma waalat soomaaliya ma aadaysaa stress marka in horta ay dib loo soo noqdo inaad adigu kaa bilowto waayo anigoo civil society matalaya again waxaan sameeyey dad badan ayaan maaragtay usoo jiheeyey inay dib dalka usoo noqdaan wax ka qabsadaan ama siyaasadda ka qabgalaan ama wax baraan ama cilmigooda ha u faa'iideeyaan ama maaragtay lacagaha ay meelaha kala geynayaan inay maaragtay inta keenaan marka civil society la-aantiis ma shaqeynayso intaan xagga jirayna waxaa jiri jiray dowladda ka dambeysay way kasii yaro fiicneed puntland bilowgeedii waxaa dhismaheedii udubdhexaad u ahaa ay nagala joogto Zainab Timbiye waxayna ahayd civil society odayaasha markay iyo nimanka ragga isku xanaaqaan oo waqtigaas waxay ahayd dagaal jiraan dumarka dhexday xiran jireen waa qaylin jireen mid gabay maaragtay buraanbur qaada mid qayliso dharka siibta dhahdaa daas dagaashaan laguma kala tegayo shirkaan annaga dalka inaad dejisaan rabnaa marka waxay ahaayeen rag iyo dumarba civil society badan ayaa puntland udubdhexaadkeedii dhismaheedii halkan 1998kii ka shaqeeyey marka civil society la-aantiis dalku waxba maba civil society weyaan dowladnimada sheegana waa civil society wax dowladda wanaagga sameeya civil society hadday wanaagsan yihiin dowlad wanaagsana kasoo baxdo insha allah weynay gaarin wataan lacagay arurinaya walaalahood soobe iyo berbeyno ku dhibaatay mataqan arurinaya marka awoodda dhalinyarada haddii la mideeyo oo la jiheeyo oo nidaam iyo mataqaanaa iqaab loo sameeyo waxaan aaminsanahay in wax badan ay bedeli karaan yaa haray marka waxaa haray civil society qurba joogta waayo civil society qabna waa local qabna waa qof Soomaaliya hadda ijaabo iyo walaasha amriga qurba ay ka yimaadeen waxyaalo badan oo aad idin cajiin oo arkaysaan waxyaalo badan oo in ka caraysiin oo arkaysaan waxyaalaha idin ka caraysiyey waxa way adigu meel markaad qaxdeen meel system la tagteen meel nidaamsan oo fadhida tagteen meesha la jaan qaadeen balse inagu intii yarkay dawladii hore inoo sameeyeen waa burbureen marka burburka yarka aragteen ha ka caroon dib ha u laabmin oo waxa isku daydaan sida hadda Xuseen iyo ragga lamid ah fiisam ay sameeyaan in ay tusaan xitaa dawladda Finland ay garow timaado sibirka maanta garow ugu horreeyay in gobol walba oo Soomaaliya ama maamul walba Soomaaliya safaaradihiina aad macnaha maadaama duwal sidii ay awoodaan inaad dalka keentaan ay Kenyaatiga iyo Hindida iyo Eeshiyaanka ay wada dayacan aysan tidwaan la noqon hay'adaha ay sabab naga diyaarin masha booyada ugu badan researchka sida jaanib ay naga diyaarin inta badanna waa engineers waa qaab injoo loo diyaariyaa fact finding ma marka qofka digaan ku dhashay oo ninka miyi u tahay kara gabadha miyi u tahay kara oo warbixinta rasmiga oo research naga diyaarin kara oo dadkiina qurba joogta dawladayna aaminayaan maadaama aniga ridooyinka maanta wali hoose u baahan taageero iyo jaal iyo saaxiib badan u baahan marka civil society qurba joogta ha han jabino civil society iyo dawladda laba iska tirsadeen si fiican ugu shaqeeyaan oo laha oo door muhiim ka qaata oo waxaad ka turjumaysaan waxa la yiraahdo adduunka waxa ugu liito qofka boogihiisa sheega marka dadka reer galbeedka la joogtaan Soomaalida wanaageeda inta badan ka sheekeeya inta liidatana adinku inta xalin kartaan xaliya oo waxa ka timid inta soo laha waxa bahda waxbarashada iyo bahda warbaahinta waxaan leeyahay New York hadda tagtaan waxay leedahay slums lana hadda tagtaan slums ay leedahay haddana tidiyo maalkan lana slums ay leeyahay oo Soomaaliya nantiga mooyaane miidiyaha inta xun iyo hoogi ba ka leexiyo inta quruxda badan ku toosiyo wacyigelin badan sameeyo haddii inta yar ma taqaanaa wasiir iyo madaxweyne wax qalday iyo gudoomiye baarlamaan wax qalday iyo haddaad ku mashquushaan oo caafimaadkii iyo horumarka waxbarashada iyo haweenku waxay qabanayaan iyo wax haddaan sheegin arkimaysid hidraac iyo meelaha quruxdooda la xayeysinaya balse waxaad arkaysaa qarax sooba ka dhacay is control mid boosasa ka dhacay mid bay dhaba ka dhacay waa arkaysaa oo miidiyaha fakinay waa wax ugu horeysa arkaysa laakiin arkimaysid jaamacadda ummadda la dhisay waxaa meelo qurux badan oo mataqaanaa dee baa muqdisho ka muuqda hargeysa ka muuqda kismaayo ka muuqda baydhabo ka muuqda hadda geed socodkan siyaasadda ka socda galmudug inta badan waxaa lagu tabinayaa iska qabsiga yarkaa lagu tabinaya warbaahinta ma tabisa inta saxda marka baal saxaabadda waxaan leeyahay war inta saxda keliya haddaan adiga wanaagaada sheegin cid sheegaysa ma jirto
inaad nagu soo booqateen jaaliyadda Finland ee Soomaaliya iyadoo magaca Soomaaliya matalaysa fadhigeeduna ahaa Muqdisho inay soo ballaarisay oo xoogaaba ay istiri Soomaaliya Muqdisho kaliya maahe walaade isteedadana iyo dadkii degan iyo community-ga joogana iyagana wixii gaarsiiyo oo bal soo arka waxa ay qabaan si aad afkaar isu dhaafsataan aad baan iyadana ugu faraxsanahay bacdamaa shirkii ugu horeeyay uu Muqdisho ahaa shirkii labaadna aad ka dhigteen Puntland khaasan gobolka Nugaal khaasan caasimadda Garowe aad bay farxad noogu tahay inaad kulankii labaad aad ka dhigtaan waana inay ka mahadnaqaynaa waxaan kaloo ku darayaa waxay la tahay kulamada kalena mar haddii aad xamar ka soo baxdeen inaad iyadana isteediyada kale sidaas oo kale ugu ballaarisaan si dhammaan Soomaaliya isdhexgalka dadka haddii Soomaaliya gudaheeda ay noqotana door weyn bay ka qaadan karaan dhinac kasta ama dhinaca arrimaha bulshada ha noqoto ama dhinaca siyaasadda ha noqoto dhinacyo badan marka horta marka ugu horeysa jaaliyadaha kalena sida jaaliyadda reer Finland ay hadda u bilowday oo bilowga fiican jaaliyadaha kalena inay midoobaan oo magac Soomaaliya ku midoobaan oo kala qaybsanka ay ka baxaan baa talahaan soo jeedinaya taa markaan inta uga baxo jaaliyadiina waxaan si gaar ah Vinson ugala sii dardaarmaya iyadoo dad wadanka gudihiisa ka warqabaatiin idinkuna inaad markaad noqotaan dadkii dibadda u warantaan Finland kaliya inaan isku koobin dadkii jaaliyadaha banaanka aad u warataan barnaamijka aad wadaana aad ku dhiirigelisaan inay mid noqdaan tala midam yeeshaan xafiis midana yeeshaan taas waa iga fariin oo wixii hadda bilowgiina anigu waxaan u arkaa inuu yahay bilow fiican inaad uga faa'iideysaan wixii kale oo saaxiibadiina kale oo wadamada aad ku nooshiin ku nool iyagana sidaas oo kale inay u bilaabaan gudahana ay yimaadaan barnaamijyadooda waxay kaloo meesha ka muuqata oo hadda safiirku xalay xafladdu nala joogay meesha ka muuqanaysa jaaliyaddu Finnish bilowga hadda ay bilowday dalka ay ku nool yihiinna waxay u arkayaan in dad gudahoodiina wax ka ah oo dadkoodii tala wadaag la iyagana wax ku soo kordhin kara wixii wax cabashooyin ama wixii horumarin barnaamijana u gudbin kara dawladda ay markaa ku nool yihiin iyada ruuxeedu fursad qaali ah ayay ahayd in safiirkuna yimaado halkan shirkiinuna ka dhaco taa markaan intaa uga baxo waxa la rabaa idinka ruuxiinu markaa noqotaan wadanka maskaxda iyo dhaqaalaha aad banaanka gelinaysaan inaad dadkana u warantaan idinkuna ku soo celisaan oo wadanka soo gelisaan hadal badan ma noo harin waa dareemi kartiin shalay aan gudoomiye halkan aan tiimku saaxiibaday aan ku kaftameynay waxa waaye marka madashaan xamara ku qaban jirnay marka waxaan iri xamara garow aan ku qabanaa tookadan marka waxay yiraahdeen inuu garow bahash waa dheereys marka dadka tiimkii saddex meel marka loo dhigo laba meel waa hartay hal meel aad timid marka tiimkan yimid oo naftigooda waxaan ku qanay waxaan dhahay annaga qurbajoog waa isnaqaanaa fasaxyada waxaan u aadnaa wadamo kale Norway marka waxaa arkaysaa tuulooyinkii Norway iyo Sweden iyo Denmark iyo America dadkii yaqaanaan laakiin ayl ogtaa qiimaha ay ku fadhiso caluula maartay qardho boosaaso garowe magaalooyinkii qiimaha lahaa maartay iyo degmooyinkii iyo deegaanadii maartay qiimaha lahaa dad waxa inuu qofkii asoo qurbajoog 30 sano 40 sano qurbo wareegay dalkiina ku soo noqday fursadina ay ugu masaabaxay inuu awoodi waayo inuu maartay dalkiisii qaybaha kale uu soo barto ma taqa wax laga mudan yahay waaye marka way naga aqbaleen haddana aad ay ugu heleen qaarkood waxa waaye xalay boosas iyo waxbay gorgorinayeen qaar waxay leeyihiin meeshaan waa badegeynaa oo maartay waxa waaye reer Puntland waa la xiriireynaa isdhexgal badanaa ka dhacay magaalada la dhexgalay rag waxaa arkay naga dhuuntay aniga ii baahan marka anigana ilaa waa u sheegay tiimka oo ma taqaanaa cilmi baara heritage aan u shaqayn jiray marka ilaa nugaalo dhan waa maray mudug oo dhan waa maray bari oo dhan waa maray waxaan iri bariiskii ugu macaanaay waxaan ka cunay xumbays aan ka cunay xumbays aan ka cunay maartay bariis hilib lagu kariyay marka deegaankan markaasaan aad aan ula qabsaday haddana in fact waxaan dareemayaa aan maartay gurigeyga joogaan dareemayaa garow hadda ka shaqeeyaa xamar anoo shaqo haystaan ka soo baxay waxaan go'aansaday inaan garow ka shaqeeyo dadkii igu dhiirigeliyo waxaa ka mid walaalkay cabdiraxmaan guureeye maartay halka fadhiyo agaasimaha xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqa Finland oo Puntland
oo in fact Soomaaliya aniga markaa madaxtooyada ka shaqeynay guddi baan iskula jirnay oo maartay technical committee oo raba inay ka shaqeeyaan arrimaha musuqmaasuqa Cabdiraxmaan in fact waxa sharaf ah wuxuu ka mid yahay dadka qurba joogta oo gaar ahaan ma taqaan inkastoo oo xamar ku soo maartay barbaaray haddana ka soo jeeda maartay nugaal gobolka nugaal gaar ahaan Garowe waxa sharaf ah in Soomaaliya institution ugu horeeyay oo musuqmaasuq la dagaalamayo dagaaladan kadib Cabdiraxmaan uu maartay marka waxaan codsanaa Cabdiraxmaan maartay inaa u sacdisaan walaalkeen asagana maanta sharaftaas ma leh inuu maartay uu gudoomiyaha gobolka nugaal nagala soo qayb galo mar raba inaan khudbad dheer galo waxaan rabaa mar kale inaan dhamaantii idin mahad celiyo waxaan rajaynayaa inta ama adduunyada wada joogno inaan sharaf iyo cizi ku noolaano waxaan rajaynayaa in aakhiro kulliga ilaahay jannada nagu kulmiyo mudane gudoomiye waxaan rabay inaan ku soo dhaweeyo haddaa ii ogolaataan walaalkay Xuseen Xaaji Jaabiri oo ah la taliye sare ee wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah nin ku takhasusay strategic communication-ka oo maanta noo akhrin doono warmurtiyeedkii ka soo baxay labadii maalmood ee aan ku qaadanay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland oo ku sugan waddanka Soomaaliya kulankaas waxaa markii labaad uu ku qabsoomay Garowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland inta u dhaxaysa 8 ilaa 9 January 2020 madashu waxaa qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Finland Finsom ee fadhigu yahay Muqdisho waxaana martigeliyay dowlad goboleedka Puntland halku dhiga madasha sanadkan wuxuu ahaa bulshada rayidka iyo kaalinta nabadeynta hogaaminta iyo horumarinta dalka madashu waxaa loogu hadlay mawduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida waxaana ka soo qayb galay 240 qof oo isugu jira mas'uuliyiin ganacsato aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah nabadeynta Soomaaliya arrimaha wacyigelinta fahamka nidaamka federaaliga horumarinta kartida dhalinyarada iyo fursadaha shaqo abuurka geedi socodka doorashooyinka Puntland sanadka 2030 shirka waxaa lagu gorfeeyay xaaladaha amniga ee gobolka iyo dowrka ay dhalinyarada Soomaalida ka qaadan karaan nabadeynta geyga madashu waxay ugu baaqaysaa hogaamiyaasha Soomaalida inay dardargeliyaan nabadeynta dadka iyo deegaanada Soomaaliya madashu waxay aqoonsatay doorka weyn ee haweenka ka qaateen badbaadinta ummadda Soomaaliyeed waxay ku dhiirigelinaysaa hogaamiyaasha Soomaalida inay aqoonsadaan kaalinta mugga leh ee kaga jiraan bulshada madashu waxay ku dhiirigelinaysaa Finsom inuu kordhiyo inay ka qayb qaataan haweenka kaalmada nooca isla markaana lagu daro kulamada umuuraha quseeya haweenka sida ka muuqata doodaha lagu soo bandhigay madasha waxa lama huraan ah in la kordhiyo lana tayeeyo kartida dhalinyarada Soomaaliyeed si ay door uga qaataan horumarka dalka madashu waxay ugu baaqaysaa hogaamiyaasha dalka Soomaalida inay ka shaqeeyaan sidii loo kordhin lahaa abuurista maalgelinta iyo xirfadaha shaqo ee dhalinyarada madashu waxay ugu bogaadinaysaa dowlad goboleedka Puntland kaalinta ay ka qaadanayaan adkeynta iyo dadaalka ay ugu jirto xasilooni siyaasadeed oo waarta madashu waxay si gaar ah ugu hambalyeynaysaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani kaalinta uu ka qaatay soo dhaweynta iyo maamuska uu qaabilay safiirka dalka Finland iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Finland sidoo kale madashu waxay ku mahad celinaysaa soo dhaweynta walaalnimo iyo abaabulka madasha reer Puntland Soomaalida qurbaha madashu waxay bogaadinaysaa kaalinta muuqata ee Soomaalida qurbaha ku yeelanayaan dalalka ay ka soo jeedaan madashu waxay si gaar ah u amaanaysaa kaalinta ay jaaliyadda Finland ay ugu jirto nabadeynta iyo dhaxgalka horumarinta dalka madashu waxay bogaadinaysaa Soomaalida qurbaha kaalinta hormuudnimo ay ugu jiraan horumarinta dadka Soomaalida ee gobolka Geeska Afrika waxayna ugu baaqaysaa Soomaalida qurbaha inay kordhiyaan ka shaqeynta howlaha tayeenta kartida dadka madashu waxay ugu baaqaysaa Soomaalida qurbaha inay ugu ololeeyaan dalalka ka soo jeeda horumarinta danaha dadka Soomaalida ee Geeska Afrika gunaanadka madashu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa shacabka iyo dowlad goboleedka Puntland sidoo kale madashu waxay u mahad celinaysaa Finsom Society dadaalka culus ee uu dhabarka u ritay waxayna ku dhiirigelinaysaa inuu sii wado dadaalkaas madashu waxay kaloo mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda Finland iyo doorka ay ka qaateen abaabulka madasha ee sanadkan 2020 ku qabsoomay Garowe Puntland hambalyo iyo shaqo wacan waxaan halkan laba bari ka socday ay ku qabanayeen ururka Finsom
jaaliyadda soomaalida Finland inay markii ugu horreysay waxay ka qabteen muqdisho Soomaaliya kadib hadda waxay ka qabteen kiisii labaad furtaankii Puntland Garowe run ahaantii wuxuu ahaa isbarasho iyo soo bandhigid waxqabadka Finland iyo Soomaalida joogta Finland oo ah jaaliyadda wax badan inaan ka ogaano waxyaalahaas sidoo kale wax aad isugu bartay meesha tan dhalinyaro ka kala yimi dhammaan reer Finlandiis ah Soomaali ah de Soomaali dhinaceeda ka wada yimi annagoo ah dhalinyarada reer Garowe runtii wax badan waa ka faa'iiday الرحمن الرحيم magacayga waa Munaa Bashir Maxamed waxaana dad ka soo qayb galay barnaamijkan xaggan lagu qabanayo weena oo ay qabanayso jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland Finsom Somali Society waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan ay qabteen waa feeskiisa labaad ay qabtaan kii hore waxay ku qabteen Muqdisho waxaan ku faraxsanahay in ay gobolada Soomaaliya ku faafinayaan aysan hal goob ku qabanaynin waan uga mahadcelinayaa tabaabulka badan iyo hawsha badan ee soo galeen magacaygu waa Cali Cabdi Cali oo ku magac dheer Cali Kiimiko kana mid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay labadii maalmood shirki ahaa oo qabatay Finsom Society waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Finsom Society iyo barnaamijyadii run ahaantii ay noo soo bandhigtay iyo conceptiga Finsom Society ay naga siisay waayo Finsom Society awal wax conceptiga kama aanan hayn wixii ay dalka ka qabteen sanadihii la soo dhaafay oo run ahaantii aan aad ugu bogaadinay Finsom Society iyo Finland dowladda Finland ay taageerayso iyo waxyaabaha u qorshaysan ay qaban doonto sanadada soo socda waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba aad iyo aad baa u mahadsantihiin magacaygu waa Cabdi Daahir Cabdi xogayaha guud ee Finsom Society runtii Finsom waxaa la aasaasay 2016 waxaana loo aasaasay baahi ay qabto jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Finland ku dhaqan iyo inay Finsom ka dhex shaqayso ama ay noqoto bridge isku xidha dowladda Finland iyo dowladda Soomaaliya waxyaalo fara badan ayaan safaaradda maanta shirkan inala joogtay aan ka wada shaqaynay oo hore uga wada shaqaynay sanadii la soo dhaafay sida qabashooyinka doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dalka Finland oo markasta ka dhacda airportka Muqdisho sidoo kale waxaanu kala qayb qaadanay maalmaha xorriyadda ee dalka Finland sidoo kale jaaliyaddu waxay xallisaa wax alla iyo wixii culays iyo dhibaato ay ku yimaado jaaliyadda Finland ee dalka Soomaaliya degan